kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba akhyaartaana dhegaysanaysa halkani waa dhexnimo media kuna soo dhawaada wararkeeni toddobaadka oo alaaba kala socotaan shabakada caalamiga ee dhexnimo media saacada Afrikada bari waa 5tii galabnimo waa maalinimo khamiis taariikhduna tahay 9 bisha 2017 wararka toddobaadkana waxa idin la socodsiin doona saaxiibkay maxamed jaamac dhaanteeye iyo waliba aniga oo Cabdiraxmaan Rashiid Dalmar qodobada wararkeena ugu waaweyn waxa kamid ah afayeenoo hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay inay jiraan tacadiyo loo geystay caruur wadankaasi Congo Soomaaliya oo yeelatay madaxweyne cusub shirkadaha ugu waaweyn wadankaasi Mareykanka dhinaca tiknoolajiyada oo ka qoray dacwad madaxweynaha wadankaasi Donald Trump maxkamadda ICJ oo ogolaatay qaadista dacwadii muranka badda ee ka dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya intaas waa qaar kamid ah qodobada warkeena toddobaadka ugu culus haatan iyagii وبوحة doorashadii sida aadka loo dhowrayay Soomaaliya muddo kale lagu qabtay magaalada Muqdisho gaar ahaan xiradii hore ee ciidanka cirka Soomaaliya ee Afisyooni doorashadu ahayd mid ay isu soo taagan 22 murashax ayaa wareegii koowaad waxa ku soo baxay 4 murashax ee ugu codka badnaa wareegii labaad waxaa tanaasulay doorashada ra'iisul wasaaraha madaxweynaadkiisu dhamaaday Cabdirashiid Cumar Sharmaarke balse markii la rabay in loo gudbo doorashada wareegeedii saddexaad ayaa isna waxaa tanaasulay madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday oo isna sheegay inuu tanaasulay sidaas darteed waxaa madaxweynaha Soomaaliya 4 sano ee soo socota noqday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo malaayiin Soomaaliya taageersan yihiin ayaa durbadiiba waxaa bilaamay dabaaldegyo lagu soo dhaweynayo madaxweynaha cusub ayaa la filayaa inuu soo dhiso xukuumad tayo leh si looga baxo xasillooni darrada muddada taagnayd haddaba Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taariikhdiisa oo kooban Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo ku magac dheer Farmaajo waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho 1962 waxaana waxbarashadiisa ka bilaabay magaaladaasi Muqdisho isagoo hoose dhexe ku dhameystay Maxamuud Xarbi iyo kowda luulyo dugsiga sarena waxa uu ka baxay dugsiga farsamada gacanta ee la foore waxbarashadiisa jaamacadda waxa uu ku bartay dalkaasi Mareykanka jaamacadda ku taal magaaladaasi Bifara halkaas oo uu ku qaatay shahaadada digriga koobaad isla jaamacaddaas ayaana ku qaatay shahaadada heerka labaad ee master degree waxyaabaha uu bartay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa kamid ah cilmiga siyaasadda xiriirka adduunka xuquuqda aadamiga cilmiga raadinta nabadda horumarinta dadweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ka soo shaqeeyay safaaradda Mareykanka ee dalkaasi Soomaaliya sanadkii 1986 ilaa 1969 intii uu burburkii ka dhacay Soomaaliya inta badan waxa uu ku noolaa wadankaasi Mareykanka 14 Oktoobar ee sanadkii 2010 ayaa loo magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 8 bishii 2017 ayaa loo doortay madaxweynaha Soomaaliya maxkamadda ICJ oo ogolaatay qaadista dacwadii muranka badda ee ka dhaxaysay dawladaha Soomaaliya iyo Kenya maxkamadan ayaa sheegtay in awood u leedahay qaadista dacwadii muranka ahayd ee ka dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya ee ahayd lahaanshaha xaqeed ee dhulbiyoodka cabirkiisu yahay 830 kilomitir oo isku wareega kaasoo ku yaala gobolka Jubbada Hoose aaga Raas Kamboni ee Jamhuuriyadda Soomaaliya dawladda Kenya ayaa ku doodaysay in arrinta laga gaaray isfahan dawladeed loona baahan yahay in arrinta la geeyo maxkamad aan loo baahin la geeyo arrinta maxkamad caalamiga balse dawladda Soomaaliya ayaa arrinta ku gacan saydhay xorriyadaha guud ee Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo warbaahinta la hadlay ayaa arrintan si weyn u soo dhaweeyay sheegana in dacwaddu muddo qaadanayso dadka aadka u lafagura ayaa qaba in Kenya doonayso inay arrinkan kaga faa'iideysato dawlad la'aanta Soomaaliya xilli ciidankeedu joogo gudaha dalka Soomaaliya shirkadaha ugu waaweyn dhinaca tiknoolajiyada Mareykanka sida Apple, Facebook, Google ayaa maxkamadda geeyay dacwad ka dhan ah xayiraadda socdaalka ee madaxweyne Trump waxaana ay ku doodeen in xayiraadaasi ay dhaawac weyn gaarsiisay ganacsiga Mareykanka ku dhawaad 100 shirkadood ayaa saxeexay dacwad loo gudbiyay maxkamadda racfaanka oo ku taala magaalada San Francisco dawladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa si wada jir uga hadlay doorashada ka dhacday dalka kadib markii isbedelkii ay u baahnaayeen shacabka Soomaaliyeed u dhacay
war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay inay soo dhaweynayaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayna ku faraxsan yihiin geedi socodka siyaasadeed ee dalka waxaanay ballan qaadeen inay la shaqeynayaan madaxweynaha cusub. Mareykanku waxa ugu baaqay madaxweynaha cusub inuu dalka gaarsiiyo doorashooyin dimuqraadi ah sanadka 2020ka. sidoo kale dowladda Ingiriiska ayaa soo dhaweysay isbedelka ka dhacay dalka waxaanay u hadlay wasiirkeeda arrimaha dibadda Boris Johnson. wasiirka arrimaha dibadda dowladda Britain ayaa sheegay inuu madaxweynaha cusub ugu hambalyeeyay guushii uu ka gaaray tartanka madaxweynaha waxaanu sheegay inuu doonayo inuu la kulmo dhowaan. afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay inay jiraan warar sheegaya in 4 caruur oo xadgudubyo u geysteen ciidamo ka soo jeeda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. waxaa la sheegayaa in tacadiyada dhanka galmada ah ee caruurtan loo geystay xero ay ku nool yihiin dadka soo barakacay colaadda ka taagan Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika intii u dhaxaysay sanadkii 2014 ilaa 2015. Eedeysanayaasha waxa ay ka tirsan yihiin nabad ilaaliyayaal ka soo jeeda waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Hagaag akhyaarta hawada nagala socotay intaa waxaa nooga wararkeennii toddobaadkan halkan si wada jira inagala socodsiinanay anoo Maxamed Jaamac Dhaante iyo Cabdiraxmaan Rashiid Dalmar. dhanka farsamada iyo isku dubiridkana waxaa inoo qaabilsanaa saaxiibkeen baxsan ee Xirsi Yaasiin Mastar Qaran. intaynu kuwan iyo warar kale oo ka sii xisaab badan ku kulmi doonana sida